sanadkiiba mar ayaa lagu qabtaa magaalada Muqdisho وسيارة حاج محمد فيدو iyo awlaadiisa oo kala ah Sheekh Cusmaan Xaaji Maxamed Fiidow iyo Cabdullaahi Xaaji Maxamed Fiidow taasi oo bilaabatay 25kii bishii lixaad soona gabagabowday maanta ay taariikhdu tahay 2 bisha Julaay ee toddobaadda علماء الدين kala duwan iyo jameecooyin kala duwan ayaa uga qayb gala sanadba halkan siyaarata waxaana halkan lagu soo bandhigaa dikri muxaadarooyin iyo waliba taariikhda uu lahaa Xaaji Maxamed Fiidow ugu waxaa taariikhda Xaaji Maxamed Fiidow ka sheekeeyay Sheekh Maxamuud Dhifle gaduud degmada Ceeldheer sanadku markuu ahaa 1892 kuna aadan 1393 hijriyada waayahay wuxuuna dhintay taariikhda wafaadkiisa 1976 ayuu da'diisu marka waxay ahayd ay tahay 84 sano jir waaye goobta uu dugsiga ka galay waa Xamar iyo Jubbada hoose Xamar ayuu 2 juz ku bartay kabacdina Jubbada hoose ayuu aaday wuxuu ka soo xareystay macalinkiisu oo ah dugsiga macallin Ciise marka sheekhadiisa cilmiga waa badan yihiin waxaase ka mid ah Shaahadan Sheekh Maxamuud Al-Awliyahani iyo Sheekh Ismaan Boqolsoon ardadiisana sheekha waa badan tahay oo aad faa'iiq u ah sheekha cilmiga faraa'ilka dadka dhan ugu soo qasdi jireen raxbiyada korka ka yiqiin qofkii la arko haduu u sheekayaayo oo ku camal fari jiray culimadii hore dhaqankooda ah lagu sheekaysto faraa'ilka mas'ala faraa'il ah ayuu waxay jiray sheekha waxa waaye dad oo wanaagsan ayaa wax ka barteen oo maal lagu soo koobi karin oo ugu horeeyay wiilkiisa macallin Ismaan Xaaji Maxamed Fiidow wuxuu ahaa dibbiga caalim ayuu ku ahaa marka ducadiisa mustajaabay aad waxyaabaha lagu xasuusto waxa kamid ah oo anugu aan ku yaqiinay in alxamdulillah neef geela uu ku kufaayay kitaabka quraankana oo aqriyaayo kitaabka Xaaji Cali Mataan ayuu tafsiirka dhageysan jiray marka gacanta laga qabaayay geel agtiisa oo masaajidka agtiisa tutugsan hadaan laga qaban way kufaayay kitaabkana ishiisa ku damoosayay marka waxa uu ahay masaakiinta mid u kaalmeeyo ahay waxa uu ahay jeebkiisu mid uu iska furan yahay oo qof aysan lahayn waraac joogta oo bixi jiray masaakiin u yimaado na oo alxamdulillah qadihay ma jirto alxamdulillah araamisha garoobada alxamdulillah waa quudiyahay dharna u gadaayay waliba agoonta aad ugu roonaay oo anaaba agoonta oo xanaanay jira kamid ah barakallahu fiikum xaajiga wax qabadkiisa wax la soo koobi kar ma aha Dr. Abubakar Xaaji Maxamed Fiidow oo ah wiilka uu dhalay Xaaji Maxamed Fiidow ayaa ugu dambeyn ku soo qatimay munaasabada duco waaye waa noo soo shamireen waa noo yimideen khayr Allah siiyo ahsantum jazaakumullahu khayran saanta soo qaadeen tiimkii Madiina loo qaad مثلkeeda Allah ka dhigo ilaahay idinkiis haddana waxa waaye waa la wax kale ma jiraan ilaa inaan ku shukrino ilaahay ku shukrino maashadiina ilaahay ku shukrino والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا فسح وايا جماعة أحسنتم أحسن الله إليكم محمد إيد الراديو أي تلفزيون كدلسن مقدشو بريمير وولت وابليكيشن عصب أو كوكاني بريمير بانك فايدوينك بريمير وولت وحا كمدا waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga
iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier